wasaaradda ururka cilmi baarayaasha Soomaaliya, bangiyada goobta ku sugan, jaamacadaha goobta ku sugan, kambaniyada telecommunication-ka ee goobta ku sugan, iyo ururada bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan ee goobta ku sugan. dhammaantiin waxaa idinku salaamay salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib marka koowaad waxaa rabaa inaan u mahadnaqo shirkadda caymiska ee Baraka oo run ahaantii maanta soo bandhigayso aragti loo baahnay oo dalkan u baahnaa in la soo bandhigo. waxaa kaloo aad uga mahadnaqaa in waqtiga yar ee shirkadda suuqa ku jirta iyo bandhigay sameynayso inay tahay mid aad u heer sareyso. just waxaa rabaa inaan ku daro 3 qodob camal oo kooban maadaama waqtiga oo nahayo casirka iyo maqribkan aad isku dhow yihiin. ayaan dhaxdaas waxaa ka qayb galay daraasadii soo bandhigaysa bankiga adduunka oo baranja bankiga adduunka ka tirsan oo la dhaho International Financial Corporation. waxaa la sheegay private sector-ka Soomaaliya waxaa ku socdo horumar zaid u fara badan. horumarka ku socdo ka sokow lama qiyaasi karo sida koriimada u socoto oo koriimo aad u waalana ku socoto 5 sano la soo dhaafay. lamana cabiri karo heerkay dhan tahay riskiyadii in laga hortagal rabo disasteradina kulligood lagama hortagin. hadda ka soo qaato tusaale lambarka bangiyadii jiray 2018 waxay ahaayeen ilaa iyo 6 camal. hadda waxaa jira 13 bangi. lacagihii bangiyada ay ku shaqeey jireen total asset-ka waxay ahaayeen for example 400 milyan camal. hadda total asset-ku wuxuu ku dhow yahay 1 billion. lambarka shaqaalaha ee shaqeey jiray hadda kumanaan waxaas oo horumar u jeedin dhan laakiin caymis kuma jiraan oo ma caymisno oo haddii su-aashina la weydiiyena waxaan haddii haween dambe lagu kala taga maxaa la sameynaa jawaab waa loo waayay. qof jawaab ka bixiya meeshaas ay joogeen wasaaradda maaliyadda, bankiga dhexe, bangiyada Soomaaliya, kambaniyada telecommunication-ka iyo qof walba ay qusayso. midda kale oo ugu daran waxaa waaye shaqaalaha Soomaaliya minimum wage rate ma leh. wax lama dhihin shaqaalaha qofka ugu yar in la siiyo waa X. qofka wixii rabaa la iska siiyaa. haddana dadka insurance ma leh. qofka markuu xanuunsado lama insure gareeyo. marka caqabadaas midaas gooni waaye. midda xigta waxaa waaye industry-ga oo caymiska ayada xataa culaysyada ka jira waxaa waaye Baraka iyo shirkadaha kaleba actigii lagu shaqeyn lahaa waa diyaarsan yahay laakiin baarlamaankan 11aad gudbinayo. lambarka kambaniyada waxaa u muudaa dalka asna inuu ku yar yahay. awareness-na ma jiro. hadda dadka Soomaalida caymis iyo waxaas waa lagalama hadli karo. marka dhammaantood waxaa waaye waa mas'uuliyad wadareed oo wada saaran qof walba oo goobtan ku sugan inuu ka qayb qaato. ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan u mahadnaqo mar labaad iyo mar saddexaad shirkadda Baraka. waxaa u jeedaa rag fara badan oo waaga jaamacadaha dhiganayna noo ahay senioro oo goobta ku sugan oo meelo kale ka socdo iyo rag fara badan oo jaamacadaha aan soo dhiganay. sharaf waa runtii in dad oo senior ku ah oo meelo kale ka socday dad jaamacadaha soo dhigateen oo institution kale matala inaa isku imaataan. mar labaad mar saddexaad waa ku mahadsantihiin tiimka Baraka iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin. program kula ogaan insha Allah.